السلام عليكم سودو لباح يا لباحات maanta waxaan doonayaa inaan ku sharxo filim lagu magacaabo Fall soo qaada koobka shaaxa una diyaar garow inaad daawato muuqaal xiiso badan dhacdada filimku waxay ku bilaabanaysaa koox dhalinyaro ah oo aad u xiiseeya buurfuulida wana wiilkan oo lagu magacaabo Dan iyo xaaskiisa Becky sidoo kale waxaa la maaniyay saaxiibtooda Hunter Dan waxa uu aad xariif ugu yahay qaab fuulida halka xaaskiisuna ay xilliga ahayd bilow sida iska cadna waxa ka muuqata wajigeeda cabsi halka saaxiibtooda Hunterna ay tahay sida Dan oo kale oo ay aad xariif ugu tahay sida loo fuulo buuraha inta kadib markan waxaan aragnaa saddexdooda oo fuulaya buur si ay u tagaan fiida sare laakiin Dan xaaskiisu waxa galaysa cabsi hor leh laakiin Dan waxa uu isku dayaa in xaaskiisu uu dhiirigeliyo si ay u sii wadato buur fuulida inta kadibna si lama filaan Dan waxa uu arkayaa god mugdi ah isagoo isla eeg waxa gudaha ku jira waxa ka soo horbaxaya xayawaan nasiib xumo Dan oo isla markiiba naxay waxa uu baxay xarigii isagoo si toos ah ugu soo dhacaya dhulka laakiin dhax markii uu sii socdo waxa uu isku dayaa inuu qabsado qayb kamid ah buurta nasiib xumo waxa toos u soo fuuqaya xarigii ilaa uu ku dhaco dhulka oo dhinto iyadoo waliba ay eegayso xaaskiisa sanado kadib dhacdada Becky wali waxa ku dambeeyay murugta saaxiibkeeda Dan laakiin waalidkeedu aad uga naxayay waxa uu isku dayaa inuu dajiyo oo xaalkeeda hagaajiyo waxa uu soo wacayaa taleefankeeda nasiib xumo markii ay aragto isla markiiba way ku daminaysaa isla xilligaana waxay iska wacaysaa nambarka uu wadan jiray saaxiibkeedii Dan si xitaa shanqarta dhicitaankiisa ay niyada uga dhisato laakiin sidii iska cad cidna kama qabanayso intaa kadib waxa ay iska soo aadaysaa guriga laakiin si lama filaan waxa ay meesha ku arkaysaa aabaheed oo taagan irida hore ee guriga waxa uu bilaabayaa inuu la hadlo isagoo oo raba in marka hore ay maskaxdeeda dejiso niyadana ay ka saarto ninkoodii hore Dan maadaama uusan soo noqonaynin wuxuuna sidoo kale u sheegayaa inay iska ilowdo noloshii hore dibna ay u raadsato nolol cusub oo qurux badan Becky markii ay maqasho hadalka isla markiiba iyadoona u jawaabin way ka dhaqaaqaysaa in cabaara kadibna waxaa soo wacaysa saaxiibteedii Hunter iyadoo oo ku wargelinaysa inay taagan tahay albaabka gurigeeda Becky waxay isla markiiba u soo cararaysaa albaabka si ay uga furto saaxiibteed farxad iyo dib u kulankoodii kadib labadoodu waxay bilaabayaan inay si fiican u sheekaystaan Hunter waxa ay isku dayaysaa in saaxiibteeda ay niyada u dhisto si mar kale ay dhaayaha u saarto saaxiibteeda oo aad u faraxsan inta kadibna waxa ay tusaysaa sawir burjiga afraad ee ugu dheer dunida iyadoo u sii raacsiinaysa inay jeclaan lahayd in iyaga oo wadajir ay tagaan fiida sare ee burjigan waxayna bilaabaysaa inay ku qanciso saaxiibteeda iyadoo xitaa u sheegaysay inay ku naaloon doonto quruxda iyo haada sare ee hawada sidoo kalena dib ay u milicsan doonto xasuusihii hore ee Dan si hadal la'aana Becky way ka aqbalaysaa waxayna si wadajir labadoodii u soo aadayaan goobta in cabaar oo ay saarnaayeen wadada markan waxa ay imaanayaan goob maqaayad ah si ay ugu nastaan uguna cunteeyaan si daalka hayo uu u kala yaraado inta kadib Hunter oo ku jahwareersan wadadii burjiga waxay gabadhii joogtay maqaayada weydiinaysaa maabka burjiga inay hayso iyo in kale laakiin gabadhu waxay u sheegaysaa inaysanba u baahneen wax maabs ah kaliyana ay ku filan tahay tilmaam inta kadibna waxay soo aadayaan hotel ku yaalay isla goobta si habeenka ay ugu seexdaan subaxiina ay ugu hayaamaan markii uu waagu dilaacay Becky iyo saaxiibteedu waxay bilaabayaan inay urursadaan qalabkoodii ayna diyaarsadaan alaabtii ay ku fuul lahayn burjiga Hunter oo u muuqata YouTuberad waxay bilaabaysaa inay duubto muuqaalo iyo wax walba oo ay sameynayso si daawadayaasheeda ku xiran ay ugu soo bandhigto in cabaara kadib iyaga oo dhex saaran gudaha gaariga Hunter waxay bilaabaysaa in mar kale ay duubto muuqaal iyadoo aad u sheegaysa in aad ugu faraxsan tahay inay soo booqan doonto burjiga afraad ee ugu dheer dunida laakiin lama filaan intii ay ku mashquulsaneed kaamirada waxay gali rabeen shil aad u weyn haddaysan dibdhici lahayn daqiiqada yar Becky oo aad u naxday waxay saaxiibteeda u sheegaysaa inay iska dhaafto kaamiradan ay ku mashquulsan tahay si naftooda aysan mar kale khatar u galin masaafo yar kadibna labadoodii si nabad ah waxay u imaanayaan goobtii isla xilligaana burjigu waxa uu muuqdaa mid ay ku hareeraysan yihiin silig aad u weyn Hunter waxay la soo baxaysaa moobilkeeda si ay u duubto muuqaalo laakiin Becky isla markii ay milicsato dhinacii burjiga waxa galaysa cabsi waxay saaxiibteedu u sheegaysaa in tani ay tahay khatar aad u weyn laakiin Hunter marka hore waxay bilaabaysaa inay dajiso iyadoo u sheegaysa inay muhiim tahay inay fuusho goobtan si ay dib ugu milicsato waqtiyadii quruxda badnaa ee la soo qaadatay saaxiibkeeda Dan markii ay yimaadaan salka hoose ee burjiga isla markiiba waxay dareemayaan in biraha ay aad u jilicsan yihiin oo ay muuqdaan kuwo miriray laakiin sida oo ay tahayba labadoodu waxay bilaabayaan inay fuulaan intii ay dhex sii socdeen Becky markan waxa la jabaysa mid kamid ah birihii jaranjarta laakiin iyadoon iscabsiinin waxay sii wadanaysaa fuulida ilaa ay yimaadaan bartamaha burjiga waxay bilaabayaan inay yara nastaan oo ay biyo cabaan si ay u helaan awood dheeraad ah una sii wadaan fuulida Hunter waxay bilaabaysaa in si degdeg ah ay u sii fuusho burjiga si markii ay gaarto meel sare ay u caawiso saaxiibteeda una dhiirigeliso intaa kadibna waxay imaanayaan labadooda meel u dhow fiida sare laakiin markan ay muhiim tahay inay qabsadaan xarig keliyana aan la isku aamini karin jaranjaro intaa kadib si tartiiba waxay u sii wadanayaan fuulida ilaa Hunter ay timaado qayb sare laakiin saaxiibteeda Becky oo wali ku jiro cabsi waxay istaagaysaa meel dhexe Hunter mar kale waxay isku dayaysaa inay caawiso saaxiibteeda oo ay dhiirigeliso ilaa ugu dambeyn labadoodu ay yimaadaan fiida sare intaa kadibna si baashaal ah Hunter waxay la soo baxaysaa daroon si ay daawadayaasheeda ugu duubta qaybta sare ee dhulka iyo goobta ay joogtaba in ayar kadibna waxay bilaabaysaa in saaxiibteeda ay ka saarto cabsida balse Becky oo xoogaa ay ka qafiiftay cabsida waxay isku dayaysaa inay hoos u soo degto laakiin sikidiis waxa la go'aysa mid kamid ah jaranjarooyinkii ay ku socotay waxayna ku soo dhacaysaa goobta laakiin saaxiibteedii Hunter waxa
waxay isku dayaysaa inay badbaadiso oo ay qabato xariggii ugu xirnaa dhaxda ilaa ay dib ugu soo celiso meeshii ay saarnayd, laakiin waa mar aysan u furnayn labadoodaba dariiq ay ku badbaadaan maadaama jaranjartii ay kusoo fuleen ay jabtay. intaa kadib Buki waxay la soo baxaysaa taleefan si ay u raadiso qof caawiyo oo badbaadiya labadooda, laakiin nasiib xumo xilligaa taleefankeedu ma laha wax anteena ah. intaa kadib labadooda markaan waxaa galaysa cabsi daran maadaama ay soo xirmatay waddo kasta oo ay uga bixi lahaayeen goobtan. cabaara kadib markaan waxay labadoodu arkayaan sanduuq yaalay isla meesha ay saarnaayeen. markii ay furaan waxa ay ku dhex arkayaan biskoolad duug ah. intaa kadib iyagoo ay aad ugu xun tahay xaaladda waxay bilaawayaan inay si wadajir ah u sheekaystaan si ay isku iloobsiyaan murugada daran. Hunter waxay saaxiibteeda ka codsanaysaa inay ka duubto muuqaal, balse Buki oo yaaban waxay saaxiibteeda weydiinaysaa sababta ay sidaan oo dhan ugu jeceshahay kaamirada. Hunter waxa ay u jawaabaysaa in Dan uu ka dambeeyay waxaan oo idil maadaama uu u sheegay in dunidan ay tahay waqti yar oo kooban, sidaa darteedna ay sawirto xaalad walba oo soo marta nolosheeda si bari ay ugu noqoto cashar waafi ah. intaa kadibna waxay labadoodu bilaawayaan inay ka fikiraan qidadii ay ku badbaadi lahaayeen. nasiib wanaag Hunter waxay arkaysaa sawirkii ay dhigtay qadka oo dhacay maadaama anteenadii ay u soo laabatay. intaa kadibna si ay fursadan ugu faa'iideystaan waxay bilaawayaan in mobilka ay ku xiraan xarig si uu ugu duubo muuqaalo dhulka ah, dadkuna ay u fahmaan oo ay gartaan goobta isla markaana ay caawiyaan. waxyar kadib markii ay hoos u soo diraan taleefanka, nasiib xumo waxaa ka tagaysa anteenada, balse mar kale iyagoo isdhibin waxa ay ku dhex xirayaan mid ka mid a kabihii Hunter. balse intaysan dirin sikadiisa Hunter waxay arkaysaa nin taagan qaybta hoose ee burjiga. Buki waxay bilaawaysaa in si aad ay u qeyliso si ninka uu u gaaro codkeeda. nasiib xumo ma soo gaaraya codkeeda maadaama uu ninku ku hadlayo taleefan, laakiin mar kale waxa ay dhulka u soo dirayaan isla taleefankii si uu u ogaado oo u caawiyo. laakiin sidii hore oo kale ninku kuma uusan baraarugin, balse wax yar kadib waxa uu bilaawayaa inuu isaga tago goobta. balse mar kale labadoodu waxaa galaya rajo kadib markii ay arkaan ninkii uu usii socday dhinacii uu yaalay gaarigii ay wateen. laakiin in cabaara uu waqtigu iswareejiyaba Hunter iyo saaxiibteeduba weli cidna umaysan soo laaban ilaa uu soo dhasho habeenkii. intaa kadibna si wadajir labadooduba waxay bilaawayaan inay iska daawadaan sawiradii iyo muuqaaladii ay duubtay Hunter. waxyar kadibna waxay milicsanayaan rag u soo socda dhinacooda, isla markiiba Hunter waxa ay la soo baxaysaa biskoolada iyada oo doonaysa inay kor u rido si dhawaaqa xabadda markii ay maqlaan ay u caawiyaan. laakiin Hunter sidii ay moodo maahe nimanka markii ay maqlaan xabadda kama soo qaadayaanba wax weyn, bal waxayba bilaawayaan inay aadaan dhinacii uu yaalay gaarigii ay wateen Buki iyo saaxiibteed si ay u dhacaan oo ay u xadaan. daqiiqada kadibna waxay isaga tagayaanba goobta. intaa kadib Buki iyo saaxiibteeduba waxaa gelaya markaan qoysashatii ugu dambeysay. cabaara kadib markii uu soo curdunaaday habeenkii labadooduba waxay bilaawayaan inay seexdaan meesha. cabaara kadib oo ay hurdaan Hunter sikadiisa waxay ku suganaysaa inay ka dhacdo goobta. nasiib wanaag waxaa badbaadinaya saaxiibteedii markii uu jawigu u soo noqdo sidoodii caadiga ahayd. Buki si lama filaan ah waxay saaxiibteedii Hunter ku arkaysaa calaamado ay ku taqiinay saaxiibkeedii Dan, isla markiiba waxay si cara leh weydiinaysaa halkay ugu yimaadeen calaamadahan. Hunter oo aan u arkin wax weyn si cad waxay saaxiibteedu u sheegaysaa in Dan uu ka dhaxeeyay xiriir ayna wada socdeen muddo 4 bilood ka hor dhimashadiisa. Hunter markii ay hadalka qirato labadooduba waxay go'aansanayaan inaysan isla hadlin xitaa aysan isbadbaadin haddii midkood uu ka dhaco goobta. intaa kadibna Hunter markan waxa ay si iskeeda iskugu dayaysaa in meesha ay uga soo degto xarig, laakiin intaysan dhaqaaqin waxay go'aansanaysaa in marka hore ay ka cudur daarato saaxiibteed, yacni ay la heshiiso. cabaara kadib Hunter waxay bilaawaysaa inay ku soo degto xariggii. nasiib xumo intii ay sii socotay xarigga waxa uu ku go'ayaa meel dhexe maadaama uu aad u gaabnaa, iyadoo weli ka laalaada meesha. markan waxay go'aansanaysaa inay iska furto xariggii inta dhimanna ay isturto. markii ay degto meesha waxay soo qaadanaysaa boorsadii, isla markiina waxay u soo laabanaysaa xariggii si ay u soo qabato, laakiin sida iska cad uu ka dheeryahay iyadoon isdhiibin waxa ay ku laacaysaa gambalkii ama ushii ay ku duubaysay muuqaalka. nasiib wanaag daqiiqada kadib waxay dib ula midoobaysaa saaxiibteeda, laakiin si lama filaan ah Hunter waxay sikadiisa uga dhacaysaa goobta. Buki isla markii waxaa galaysa cabsi zaa'id ah ilaa ay aaminto in saaxiibteedii ay dhimatay. intaa kadibse waxay ogaanaysaa inay weli ku dhagan tahay xariggii, iyadoo isdhiirinaysa waxay bilaawaysaa in markeeda ay badbaadiso saaxiibteeda oo ay aad u dhiirageliso ilaa ay si dhab ah usoo badbaadiso. intaa kadibna waxay furanayaan boorsadii si ay ugala soo baxaan biyo. daqiiqada kadibna waxay soo bixinayaan waraaq ay ku dalbanayaan caawimaad, iyaga oo go'aansanaya inay ku xiran daroontii isla markaana ay usoo diraan dhulka. markii ay dhaqaaqdo daroonta isla markii waxay noqonaysaa mid aan kontaroolnayn hawada zaa'idka ay jirtay darteed. Hunter isla markiiba waxay u soo celinaysaa dhinaceeda, laakiin daroonta oo dablaan u dantay ma awoodaysa inay kontaroosho ilaa ugu dambeyn ay si nasiib ah u qabato iyadoo dhici rabta. saacado dheer kadib oo ay isku dayeen in naftooda ay badbaadiyaan markan waxaa la gaarayaa habeenkii. waxay bilaawayaan in si caadi ah isaga hurdaan. cabaara kadib oo ay jiifeen Buki markan waxay ku riyoonaysaa qarow aad cabsi u ah, taasi oo keentay inay ka toosto hurdada, laakiin lama filan isla markiiba waxay arkaysaa burjiga qaybtiisa sare oo aad u iftiimaya. waxay bilaawaysaa inay u adeegsato jacjar ahaan si ay ugu dabeeyaan daroonta, balse waxay go'aansanaysaa inay u sugto inta waagu uu ka dilaacayo cadceeduna ay aad u kululaato. markuu waagu dilaacay Buki waxay bilaawaysaa inay isku xirto fiilooyinkii si ay ugu yaraan xitaa u hesho awood koronto ilaa xitaa bir ahaan ay u adeegsato katiinkii ugu jiray qoorteeda. laakiin nasiib xumo isla xilligaa waxaa soo weeraraya dafa aad u weyn. intii ay islahayd iska celi si lama filaana
mar kale waxaa ka dhacaya boorsadii. intaa kadibna waxay u imaanaysaa saaxiibteeda iyadoo weydiinaysa sababtii ay u qaban weyday boorsada, laakiin Hunter uma jawaabayso. intaa kadibna Beaky waxay bilaawaysaa inay daarto Doronti, kadibna waxay u soo diraysaa dhulka mar kale. in cabaara kadib markii ay u kacdo Doronti waxay soo aadinaysaa dhinacii hoteelka si uu ugu yaraan u arko qof kadibna uu badbaadiyo, laakiin si aysan malaysanaynin waxay arkaysaa Doronti oo ku dhacaysa dhulka. Beaky aan weli isdhibin waxay markaan soo qaadanaysaa doobiro si ay u eegto in dad ay u soo dhow yihiin iyo an kale, laakiin sida iska cad cidna uma soo dhawo. intaa kadibna waxay go'aansanaysaa inay rido mar kale teleefonkeeda. waxay saaxiibteeda ka codsanaysaa kabteeda si ay ugu dhex xirto, laakiin Hunter mar kale way ka diidaysaa iyadoo u sheegaysa in tani ay tahay midda kaliya ee kab ahaan ka haysato. in cabaara kadibna Hunter waxay bilaawaysaa iyadoo adeegsanaysa xirfadeeda in sidii ay noqotoba ay ka degto goobtan. waxyar kadib markii ay bilaawdo degidda mar qura waxaa u baxaysa lugti si kadisna waxay ugu dhacaysaa goobta. Beaky isla markiiba waxay bilaawaysaa inay soo badbaadiso saaxiibteeda oo u muuqata mid haleelay dhaawac daran oo xitaa aanan awoodin inay dhaqdhaqaaqdo, laakiin nasiib xumo awood uma yeelanayso maadaama ay aad uga dheereed ilaa ugu dambeyn ay aragto saaxiibteeda oo meyd ah. in cabaara kadibna waxay milicsanaysaa Dafii oo cunaya meydka saaxiibteeda. daqiiqada kadibna Dafii waxa uu soo aadayaa dhinaceeda. Beaky oo u muuqata mid uu haleelay tawardari iyo murugo zaa'id ah waxay bilaawaysaa inay iska difaacdo ilaa ay qabato ay cunto si hilibkiisa ay uga hesho tamar dheeraad ah. intaa kadibna Beaky markan waxay bilaawaysaa inay raadiso qido walba oo ay halkan uga degi karto. isku dayo badan kadib markan waxay kor imaanaysaa meeshuu yaalay meydka saaxiibteedii Hunter. waxay la soo baxaysaa teleefonkeedii iyadoo iska duwaysa muuqaal ay ku dalbanayso caawimaad si teleefonka ay uga hesho anteeno. waxay moobeelka gelinaysaa jeebka saaxiibteedii Hunter kadibna waxa ay ku soo tuuraysaa dhulka. daqiiqada kadib moobeelka markuu helo anteeno muuqaalka waxa uu ku faafayaa qadka ilaa booliskii ka agdhawaa goobta ay bilaawaan inay badbaadiyaan Beaky una soo qaadaan helikobtar. in cabaara kadib aabaheeda oo arkay muuqaalkii isla markiiba waxa uu imaanayaa goobta, laakiin lama filaan markii uu yimaado isla goobta waxa uu milicsanayaa meydka gabadhii Hunter oo uu moodo gabadhiisa. waxaa galayso tiraanya daran, laakiin lama filaan si kadiisa waxa uu milicsanayaa gabadhiisa oo u soo cararaysa dhinaciisa ilaa ay gasho laabtiisa kana dalbato cafis. gunaanudka iyo gabagabada muuqaalkeena daqiiqad walba oo kusoo marta noloshaada waa fursad ee ha isdhiibin. waxaan rajeynayaa in muuqaalka aad la dhacday lana wadaagi doonto ugu yaraan mid ka mid ah saaxiibada si isagana uu u daawado. mahadsanid.